الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، كلمة أنما أنت إن شاء الله تعالى حيكوسا بصنتهاي وأن كرهل لدونا عذر كالليرادو مرض الغفلة، عذر خطير جدا، خطر بل علماء إيرادان وأخطر من كل داء. عذر هذا كل بني آدم وعذر كأوها للسن الغفلة، قفكو إنو موغنان كسقناضو إيادو هنان وإلهي وإنا سبحانه وتعالى إيا النبي صلى الله عليه وسلم إيا رسالة اللوسو ديبي جيريدا إيا حنون كيدا قبرغا إيا مقدقيسا إسي صاردا قيامها إيا أهواشا إلا دهي صراطك يزا الذيسا حسابتا أديقيدا إيا الله استاقيدا انتا صوردان إنو قفكو أو غفلتك يسقناضو. رناهانتي مركا وعذر آدي هالسوء ما أنتنا إلا الدريهين أكثر أهل الأرض دولك دادك كونول أكثر كود إلا الدريهين. وأي الله وحو أرانا يا سبحانه وتعالى وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. haddii aad raacdid nabiga suubanow dhulka waxa ku nool aktarkooda haddaad iska raacdid yudilluka can sabiilillah, waxay kaa luminayaan ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala waddadiisa. wamaa yu'minu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun walaa tajidu aktarahum shaakiriin. marka aktaru ahli lardi maanta waxaa ku dhacay cudurkaas halista ah oo cudurrada bani aadamka ku dhaca cudurka ugu haalisana. cudurkaasi marka wuxuu sababaa qofka qalbigiisa iyo carabkiisa iyo jawaarixdiisuba intaba inay fasahaadaan haddii mar qofku qaflah ay ku dhacdo. marka cudurkaasi markaan ka hadlayno waxaan uga hadli doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo 4 qodob. kow, qeexidda كلمة الغفلة iyo علامات الغفلة، غفلة علامات كإسكال يدهي iyo sababaha keena غفلة. حانو دنبيسين دونا هدي إلهي رادو علاج الغفلة، عذر كاس داوديس. شيء مركا وروا إلا قيحو مركا لبرتو علامات هدولية علامات كيسين اللغوش يغو oo aad ogaatid inuu ku hayo kadibna lagu daba dhigo sababihii keenayay. markaas way fududahay daawada haddii lagu sheego inaad qaadato. marka qeexidaan ku hormarinayna alghafla waa asahwu can shay, shayga oo qofka mooganaan uu kaga sugnaado. وانا مصدر فعل كغفل يغفل غفلة وغفولا، ولذلك باوح ورادا ابن فارس كتاب كيسال مغاييس اللغة مركو كهاليو كلمة الغفلة وحو ورادا الغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهوا وربما كان عن عمد. وحير هذا إمام كاس لغوي هي غينك يفأد يلامت وأصل صحيحة سدح دبا. وحين تصان شيء إن لغتغه سهوا سي موغنان إلا بدأ قفوا إنه شيء كغتغه، لكن وربما كان عن عمد. mararka qaarna waxa dhacday inuu kas uga tago soo kas uga tagay in ghafla loo isticmaalana way dhacdaa
وحابا كمي دبا إلهي قولك سبحانه وتعالى ألا أويري اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حلو استعمالي غفلتي كلمة دي أهد شيء سوى قفك كتغي كانت تغي إهمالا وإعراضا ضيعيد أصغى أو ضيعي إيجيس شيء وأصغى كسوى جيستي waxaa dhawaaday baa Allah oranaya subhanahu wa ta'ala dadka waxa uu dhawaaday xisaabtoodii geeridoodii inay dhintaan ama qiyaamihii labada waa lagu fasiray wahum fi ghaflatin mu'ridun ayagoo dadku ku sugan moognaan ayagoo ku sugan moognaan oo ay moog yihiin ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala wixii uu abuuray oo cibaado iyo taaca ahayd ayagoo qaflad kaga sugan waliba mu'ridoon ah wajeestay ah oo wixii Allah uu abuuray ka jeestay wixii Allah ka reebayna subhanahu wa ta'ala u jeestay marka waa baraarujin weey ilaahi uu baraarujinayo subhanahu wa ta'ala iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun idan marka kalimatul ghafla wa ghaibatu shay عن بال الإنسان وعدم تذكره له شيء أو مقناده قفك قلبي سك مقناده أو صن حسوسا أي الإرادة اصطلاحا علماء وحي يقانين غفلة حلقة صون نقلية علماء تعاريف متقاربة تعريفيات يادو فربضا اسكونا دو وحول هذا الحافظ المناوي الغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به وحال هذا غفلة فقد الشعور قفكو إنو وايو درينكي إنو وايو بما حقه أن يشعر به وحيل لغربي حقها إنو درينه dareenkaas in la waayo baa la yiraahdaa oranaya qaflada بعض علماء كمدنا waxay yiraahdeen qaflada waxa la yiraahdaa mutaabacatu nafsi ala ma tashtahi nafta in la iska raacsiyo wax allaalo iyo waxa ay ishtahaynayso jacasha naftana rabbi markuu ka hadlayay wuxuu yiri inna an-nafsa la ammaratun bis-suu naftu waa mid farid badan qofka xumaatada inuu sameeyo aad bay u fartaa marka qofku hadduu naftiisa iska daba galo oo naftii uu iska raaco wax allaalo iyo wixii ay jeceshahay shaki waxaan ku jirin oo qofkaasi khasaaray waayo nabigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam jannada in lagu hareereeyay naftu waxay kohanayso naartana lagu hareereeyay wax allaaliyo wixii naftu ay ishtahaynayso jeceshahay marka naftii wixii ay ishtahaynayso jeceshahay waxa lagu hareereeyay naarta naftu wax allaaliyo waxay jeceshahay hadaad u sameeysid oo ayada daba gashid waxay ku hogaaminaysaa oo ay ku geynaysaa waa naar idan marka salaaxaadu wuxuu ku jiraa mukhalafatu nafs nafta inaad khilaaftid طيب بعض علماء كمدا سيدا الإمام الشوكاني في تفسيره وكسر نقليه غفلة وحيرادين وذهاب الشيء عنك لانشغالك بغيره وحال إرادة غفلة شيء إنه أديك كاتره لانشغالك بغيره هذا كم مشغول سن غير كيس إن شيء كدافه أيها وحلو يقعنا بأرنيان الغفلة انتبه علماء التعاريف تودما ويسكو دودويين warka soo aruuri waxa qaflad la yiraahdo in la waayo dareenkii la doonayay oo qofka muslimka laga doonayay shaygii la rabay inuu dareemo oo xasuusnaado dareenkaas in la waayo baa la yiraahdaa qaflada waana cudur khatir jiddan ah nabigana alayhi salatu wasalaam ilaahi uu ka magan gali jiray في بعض الأدعية وحافظها اللهم إني أعوذ بك من الغفلة والقسوة إلى هو عن كان مجنجلي يا مغنانتا يدهنانتا أن مغنادو
غفلت كيسقناضو إلهي وينا سبحانه وتعالى إيو دينتيسي إيو جيريدا إيو حنون كيدا قبرغا إيو مقدقيسا أيان إله كامل قليا والقسوة إيو قلبي وقلبه قلبي أيان إله كامل قليا كلابا عذر علي سوي عذر كان ولا ليال وحوس كليه علامات يسا وبدني لكن سدح أيام كسو قادرين علامات الغفلة علامات كواد عذر كان لو غرت waxa weeye التكاسل عن الطاعات qofka inuu ka wahsado oo ka lug dambeediyo ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala taa'adkiisi mar hadaad is aragtid inaadan taa'adii aadan u hayn firfircooni iyo nashaad oo aad ka wahsanaysid culays ka saaran yahay taa'adii iyo cibaadadii waxaad ogaataa cudurkaas ku haay dadka ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala markii uu ka hadlayay gaalada wuxuu ku sheegay Allah subhanahu wa ta'ala oo ku tilmaamay يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إن قالوا أيهين كوا قرانا يا ظاهر الدنيا يصيد الله شقيسته أي حادقين كيينو آب أصغين لكن وهم عن الآخرة هم غافلون بعليه سبحانه وتعالى آخرة وموجين غفلت بك جسوي مركا وحا أغفلا الكلمة الغفلة وحا دمي يعيبين وحا أغفلا إن لقد صفة من صفات الكفار منافقين تألا مركو كهل لينا وحو النوشيغي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مركا هدي aad aragtid adigoon cibaadadii u haysan wax firfircooniye nashaad aadan u heli karin waxa kugu sugan marad al-ghafla ayaa kugu sugan waa calaamaadka lagu garto calaamada labaad oo lagu garto waxay tahay istisghaaru al-muharramat wat-tahawun biha muharramaadkii iyo macaasidii qofku inuu yaraysto asagoo kabiira min al-kabaa'ir ku dhacay qofkii inuu isu arkaba inuusan wax saasaba samayn muharramaadii iyo macaasidii inuu yaraysto oo wax yar oo u arko oo na fududaysto waxa ka sugan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardaa saxaabigaasi inuu yiri qofka mu'minka ah wuxuu u arkaa dunuubta asaga ka dhacda kaanahu qaa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqta'a alayhi qofka muslimka ah markii dambi ka dhaco wuxuu ka dhigan yahay asaga oo hoos fadhiya buur kana baqaya buurtaas inay ku soo dhacdo sidaas uu gariiraya qofka muslimka ah markii dambi ka dhaco halka qofka faajirka ah oo u arko dunuubtiisa kadubaabin marra ala anfihi tisxi sankiisa dul maray oo kale oo sida iska yiri ayuu arkaa mar hadaad aragtid muharramaadii waxyaabihii ilaahay uu xarimay subhanahu wa ta'ala iyo macaasidii samayntoodu inay ku fududahay waxabana aadan u arkayn qof musiiba ku dhacday oo dambi weyn galay hadaadan ba aadan isku arkayn waxaad ogaanaysaa waxa ku haaya maradul ghafla ayaa ku haaya calaamada saddexaad lagu garto waxay tahay cudurkan tadyiicu alwaqti min ghayri faa'ida waqtigaadii inaad ku bixisid oo ku dayacdid faa'ida la'aan wax aan faa'ida lahayn haba yaraatee hadaad mar waqtigaadii ila waqtigu waa nicma min Allah nicma ilaahi ku siiyay subhanahu wa ta'ala wala liswaydi doona mar haddii waqtigaadii aad ku bixinayso ku dayacaysid waxaan faa'iido aysan kuugu jirin waxaad ogaanaysaa in cudurkani uu ku haayo غفلة
cudurkani inuu ku haayo ayaad markaas oo kala dareemaysaa waqtigu walaalayaal waa nicma mana iska dayaco waqtiga ilaa qof qaafila ma ahan sababtoo ah qofka qaafilka ahi ma garanayo waqtigaani inuu yahay waxa qofku uu haysto shayga ugu qaalisan inuu yahay ma garanayo qofka qaafilka ah ولذلك بوحو السبب بحين يا وقت جيسي وحن فائدة إيسان كجر وحكا سوقلي العرق نبي صلى الله عليه وسلم وحويره حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لبن نعمو إن بدن أو ضدك كمد آهي ويكوكا تسويه كما فائدة إستان لوضع النعمة والصحة والفراغ عافماتك يجانس كي وقتك هيستي فرصة عاد هيستي والنعمة marka dadka akthar kooda nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam wada nicmo ku kadsoon yihiino kama faa'iideystaan saddexda calaamado hadaad isku aragtid qof walba waxaad ogaataa cudurkaas inuu ku haayo mar haddii taacaadkii culayska saaran yahay waadan nashaad iyo firfircooni aadan u hayn muharramaadii iyo macaasidii ay ku fudud yihiin waxbana aadan u arkaynin waqtigaadii aad ku dayacaysid ku bixinaysid waxaan faa'iido ku jirin لا شك إن عذر كاس شك كم جرين عذر كاس أو كهاي صوابا أيا كان عذر كان غفلة الليلة صوابها كان صاف كواد وحويها حب الدنيا الدنيا ده الله جعل هذا حب الدنيا رأس كل خطيئة دم كستاء الله قاله وحمدحوه خطيئة يجف كستاء بني آدم كقاله حب الدنيا الدنيا جحيم الدنيا دني وحويان وحيننا مشغول صار إلهي وإنا سبحانه وتعالى إن حصوصنا إلهي ذكر جيسا شرعنا إن كنا قلنا وحصدنا الدنيا دني ومشغول ليس وإنا مشغول ليس إن قبرك حصوصنا جيريد إن حصوصنا سكراتك إن حصوصنا قيامها إن حصوصنا صراطك يزلدي سينا حصوصنا حسابته إيا الله سبحانه وتعالى إنا نهور استاغين إنا حصوصنا وحنا مشغولون يا الدنيا إنا مشغولون إلهي وحورنا يا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وحائد المشغولي ووحي إلهي إذين أبو ري سبحانه وتعالى إذين كمشغولي التكاثر وحبطس وحكالبطس بدي سوفاني مال كان قدر كان سوقبه كان كجر التكاثر حتى زرتم المقابر إلى أد قبوره كتمادين أو شاسات هيدين وحي الله إذين أبوري وحي إذين كمشغولية التكاثر مال بدي ثاني كان قدر كان كصادر حاجة كسر اسكو حسابي كان كجر سيدا انت هيدين الى بعد ما ركت قبوره بعد كتيمادين qofku marka qabriga markuu yimaado geeridu timaado markaas ayuu baraarugay laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid waxaad ahayd insaano fi ghafla an hada haqiqadan mid ghaflad kaga sugan mid moognaan kaga sugan haqiqadan فكشفنا عنك غطاءك وحن فيدني مركا ضوالك كسارنا أيان كافيني فبصرك اليوم حديد ما أنت أرقادي وفيقية أدبض وحو أركيسا مركا أرقي ما أنت وحوية وح أركيسد أو وح قرانيسد لكن وحبا ما ترعيون حاتكو على عليسا ربي وعلي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائله يبلغوا علمها إذن الدنيا أن جوجنو وحين مشغولين يسا أمورها عن صوت شيء أي نجا مشغولين يسا الدنيا جعلك وحصاب النقطة قفك إنه غافل نقطة دلال كبحيو الدنيا أيضا كمركو أيضا وحويان اندبتها إنه هذا وقت كبحيو فكرة كبحيو سيدا الله بقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال دي با إلهي كهل لا يوحي قرنا يعني علم إليهن ظاهر كأدوية
adduunyadan bay garanayaan waa barofesoro injineero weeye shahaadooyinka haysta oo aad iyo aad ugu dadaala iqtisaadiga iyo umuraha adduunyada aad u yaqaan laakiin wahum can al-aakhirati hum gaafiluuna calayhi subxaanahu wa tacaala aakhiro gaflad bay kaga sugan yihiin wuxuu yidhi alimaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala fii tafsiirihi akarka dadka uma lahan aqoon wax aqoona ma lahan ilaa bidunya adduunyo maahan adduunyada iyo sida loo shaqaysto iyo umuraha adduunyada fahum fiiha xudaaq adduunyada iyo umuraheeda iyo adduunyada sida waxa weeyaan looga shaqaysto aad iyo aad bay dadku xaadiqiin ugu yihiin adkiya fi taxsiiliha wadad adkiya oo dhugu leh sida adduunyada loo soo xasilin lahaa wahum gaafiluuna can amri dunya wamaa yanfacuhum fi daari alaakhira laakiin dadku waxay qaflad kuga sugan yihiin arrimihii diinta iyo wixii daarta aakhira anfici lahaa qafladay kaga sugan yihiin walciyaadu billah akhi lmuslim waa sidaa sheekhu sheegay dadka agtarkoodu inay qaflad ku sugan yihiin waxaa ku tusaya bal waxaad booqataan majaalista dadka meelaha dadku fadhiistaan xaalkooda fiiri waxay ka sheekaysanayaan majaalistaas maxaa lagu qaadan dhigayaa can iddunya adduunyo ayaa looga sheekaysanaya can ilmaal can ilnisaa can alshahawaat can alribx can alkhasaara adduunyo iyo maal iyo qof walba intuu faa'iiday iyo intuu khasaaray iyo haween iyo shahawaadkii adduunyada iyo waxaas baa looga sheekaynaya idan walaalayaal kadsoonaashada adduunyada aan ku kadsoonahay iyo tiimbashada aan dhex tiimbannay shahawaadka adduunyada waa sababun kabiirun lilqafla waa sabab weyn oo sababaya inaan qaflad kaga sugnaano ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala wixii uu noo abuuray ilaahayna wuxuu nooga digayaa inaan ku kadsoonaano adduunyada ilaahay wuxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaq falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum billahi algaruur ilaahay wuxuu odhanayaa yaa ayuha annaas dadow ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala wuxuu idin yaboohay xaq wey wuxuu alla idin yaboohay waa xaq oo haddii aad maaragtay ilaahay taacadiisii iyo awaamirtiisii iyo u hoggaansantaan wixii alla idin faray aad la timaadaan wixii alla idinka reeba aad ka hartaan ilaahay wuxuu idin yaboohay oo jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisa iyo raxmadiisa ah waa xaq wey wixii alla idin abuuray haddaad mukhaalafo la timaadaan ood khilaaftaan awaamirtii alla qaadan weydaan wixii alla idinka reebay ka hari weysaan wuxuu alla idin yaboohayo naartiisii ah iyo caradiisa iyo ciqaabkiisii waxa weeyaan waa xaqe ogaad yaa ayuha annaas ina wacda allahi xaq falaa tagurannakum alxayaatu addunyaa yaysan idinkadinin noloshaan adduunyada ha ku kadsoominina ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi إن الله يبغض كل جعضري جواد صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة وحديث عجيب النبي عليه الصلاة والسلام وحليه إلهي وهو عروده قف كستا أو قلفسن قف كستا أو قلفسن أو أدك جواد جوادك وقفك لما صفة لغيها والجموع المنوع مالك وقف كل من بدن تيدنا بدن مالك وحو كدد على وجودك بحيصينه كسو حاصل الله وانا منوع وادي دام بحيه مد كستو صفة اسكال إن الله يبغض كل جعضري جواد صخاب في الأسواق قيل بدن سوغيدا دحدودا مرم بدن جيفة بالليل حمار بالنهار هذين الدين قالوا وبختي ما كعيو إلهي عبادي أكعي مايو سننا أكعي مايو واجبنا أكعي مايو وجيفة بالليل هذين كمرك الله فيري وبختي حمار بالنهار
maalintiina waa dameer oo kale sida dameerka oo kale u shaqeeya caalimin biamri dunya arrin adduunyo hadday tahay aad iyo aad buu u garanaya adduunyo sida looga shaqaysto umuraha adduunyada waa caalim buu ku yahay laakiin waa jaahil biamri alaakhira arrimaha aakhirana jaahilka qofka noocaas ah nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u carooda xadiidka fi saxiix aljaamic ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasirudiin albani qofkaasi markaa oo sidaas ah oo adduunyo uun hamigiisu uu yahay adduunyada uun garanaya aakhiro waxba aan ka garanayn wuxuu ka dhigan yahay qof oo aanba loo abuurin wax cibaado ah qofkaas marka la fiiriyo wuxuu ka dhigan yahay qof aanba loo abuurin cibaado ee loo abuuray adduunyo iyo shahawaadkeedii daahirkiisa markaa fiirisid waayo hadduu fakero adduunyuu ka fakeri hadduu wax jeclaado adduunyo daraaddeed buu wax u jeclaan hadduu shaqaynayo camila lidunya adduunyo daraaddeed buu u shaqayn ayada daraaddeed ayuu dadka kula doodaya dadka ku colaadinaya dadka ku dilaya adduunyo daraaddeed low kaanat addunya cinda allahi janaaxa bacuuda ما سقى كافرا منها شربة ماء النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا الله أكتيس سبحانه وتعالى هذيك لا كان له جناح بعوضة قرب كان قال كبشبي على جمسي إنساس النبي عليه الصلاة والسلام مركز صوف كاس الدنيا أيو كفر ليسنا إياه وقتل إياه كثيرا من أوامر الله إن بدنا إلهي وإلى سبحانه وتعالى أوامرتي سكملة marka sababka koowaad oo qaflada qofku inuu mooganaado oo qaflad kaga sugnaado wixii laga doonayay inuu xasuusnaado san ilaadin sababka koowaad waa xubbu dunya adduunyo jacayl sababka labaad wuxuu yahay aljahlu billah ilaahay wana subhanahu wa ta'ala qofku inuu jahil kaga sugnaado ilaahay asmaadiisa ilaahay sifaadiisa ilaahay awoodiisa inuu qofku jahli kaga sugnaado in badan oo dadka kamid ah ma garanayaan rabbigood ma garanayaan xaq al-ma'rifa ma'rifadii dhabta ahayd ma garanayaan waayo hadday garan lahaayeen ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala ma'rifadiisa dhabta ah hadday alla u garan lahaayeen qaflad kama sugnaado ilaahay dhikrigiisa ilaahay awaamirtiisa إلهي وحيابها أو ريبيو قفلتك يا مسوق نعدين واي وحال إلى ذا معرفة حقيقة ذاهي وحي قلبي قد حال سيسا إلهي وإنا سبحانه وتعالى جعيل كيس إلهي محبديس أي قلبي قد حال سيدا إلهي عبسيديس وقفك إلهي كعبسه سبحانه وتعالى إلهي رجيديس إلهي وينكيس إلهي قفك إنه رجيو إلهي كعبسه قلبي قال كوينا قلبي كيس أي معرفة حقيقة ذاهي وحويان أي دحل سيدا قلبي إذا المركز وحد عيسى قفك مؤمن كأهاي إنه كحشوضه إنه أركو ربيجيس أسوق معسكو الصغان أسوق غفلتكو الصغان هذا هو حشون يقفك مركز مسلم كأها وحال إذا ذاتك الجهلاء ذاهي وحيوه الشدان مع الصدق إلى الشهوات أيوه الشدان لكن ذاتك عارفين تاهو إلهي قرنا سبحانه وتعالى وحيوه الشدان ذكرك الله يطاعتك على أيوه الشدان باليرات إذا صوب كلابات وقفك كدرية إنه قفلت كدعو صوب كلابات والجهل بالله إلهي وإنا سبحانه وتعالى وقفك جهلك رسولنا صوب كسدحات وحي المعاصي معاصينا أيضا وحي صوبتا قفك إنه غافل نقض صوب كان يوليبا ومن أعظم أسباب الغفلة صوبها غفلة كان متك كو أوين معاصينا قفك هذه معاصي سأي بلط معصية قفك أو سمينيو وحويان وحي سمينيسا قفك قلبيسا أي سامينيسا قلبيسي أي مرنيسا قلبيسي أي مدوبينيسا
qofka qalbigiisu hadduu madoobaadana wax wanaagu ma gelaya kalla bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaxsibuun quluubtoodii ilaahay waxaa miririya buu yidhi waxay kasbadeen oo macaasiya oo ay la yimaadeen marka macaasidu waxay sababtaa qofku inuu qaflad ku dhaco wuxuu yidhahdaa ibnu cabbaas radia allahu canhumaa xasanada iyo wanaagga qofka uu samaynayo waxay iska leedahay ina lilxasanati diyaa'an fi lwajh wa nuuran fi lqalb wa sicatan fi lrisq wa quwatan fi lbadan wa maxabbatan fi quluubi alkhalq wanaagga qofka uu samaynayo wuxuu iska leeyahay wejigiisa oo iftiima qalbigiisa oo nuura risqigiisa oo loo waasiciyo jirkiisa oo hela awood iyo maxabba fi quluubi alkhalq khalqiga alla abuuray quluubtooda in maxabba iyo kalgacalo loo geliyo laakiin wuxuu yidhi waina lisayi'a sawaadan fi lwajh siyaada iyo xumaantu waxay iska leedahay wejiga qofka oo madoobaada wa dulmatan fi lqalb qalbigiisa oo mugdi ou galo wa wahnan fi lbadan wa naqsan fi lrisq wa buqdatan fi quluubi alkhalq waa intii cagsigeedu idan marka sababka saddexaad wuxuu noqday almacaasi oo qofka ku dira inuu qaafil noqdo sababka afraad waa suxbatu suuq qofku inuu yeesho suxbatu alashraar saaxiibo shar oo xun inuu qofkii waxa weeyaan uu samaysto markaasna waxaa imaanaysa qafladu way imaanaysaa waxaa la yidhahdaa qofka la fadhiista oo la saaxiiba dadka qaflada ku sugan waa ahluljur'a cala almacaasi dadka ku dhiiradoo ku maman macaasida qofka la saaxiiba waxaan shaki ku jirin qofkaasi inuu cudurkaasi u soo dusaayo asaga inuu asaga u soo dusaayo cudurkaas maalinta qiyaamana marka waxaa dhacaysa in la shalaayo wayowma yacaddu aldaalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila saaxiibka xuni qur-aankuna aad buu uga digay sunnada nebigana sala allahu calay wasalam aad iyo aad ay uga digtay ugana hadasho qofka daalimka ah oo naftiisa dulmiyey adduunyada ku dulmiyey maalinta qiyaamo fartow qaniinaya wuxuuna odhan doonaa shallaytadaydiiyo maxaan rasuulka waddadiisa u raaci waayey yaa laytanii lam attakhid fulaan khaliila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila alla shallaytadaydiiye maxaan hebel saaxiib uga dhigtay uu ka shallaynaya shallaygaasna maalintaas waxba uma tarayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna siiyey mithaal baliiqa wuxuu nagala hadlay nebiga sala allahu calay wasalam aljaliisu suu waljaliisu saalix saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsan nebigu wuxuu mithaal buuna siiyey mithaal baliiqa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu ljaliisi saalix waljaliisi suu mathalku wuxuu yahay saaxibka xun iyo saaxibka fiicani ka xaamili lmiski wa naafikhi lkiir labadaasay ka dhigan yihin ruux iibiya miskiga iyo catarka shaqadiisu ay tahay iyo qof shaqadiisu ay tahay inuu buufiyo waxa weeyaan inuu afuufo buufanaha waxa la yidhahda shaqadiisu waxa weeyaan buufanahaas ayuu afuufaya midna cadarka u iibinaya qofkan cadarka iibinaya haddaad la fadhiisid laba shay waad ka helaysaa imaa inaad ka gadatid wa imaa inaa intaad la fadhisid inaad heshid riix wanaagsan aad ka heshid labadaba waa ka faa'iidaysa laakiin qofkan buufanaha afuufaya naafikhulkiirka intaad la fadhisid waxaa dhici karta dharkaba inuu kaa gubo
inta la fadhiday in dharkaadiga ololo oo gubto dhibila ku soo gaaraan iyo inta la fadhisid inaad riix sayyi ah waxa weeyaan aad heshid marka laba misaal oo baliiq nabiga kaleey salaatu wasalaam u nasiib saaxibka wanaagsan iyo saaxibka xun nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ka sugan inuu yiri ar-rajulu ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhalil النبي لي عليه الصلاة والسلام قفك الرجل ومن باب التغليب قفك وحو كسوغن ياهي هيستا على دين خليلي صاحب كيس دينتي سيدقن كيس أيوه هيستا إذن وحو النبي نير مركا فلينظر أحدكم من يخالل اسكفيريو أحدكين روح الله الصاحب آدي سكفيريو حديث كحديث حسن وي حاوري أبو داود أيا صوصاري في سننه وحكى النبي لا يوري إنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي الله صاحب قف مؤمن وأهل الإيمان معنا قف كله انتظر هذا يوصلون إلى قف تقي وربك عبسنا معهم حديث كاس سنة وحديث حسنة أبو داود يسوع صار في سننه آد أي وناجي مقالة الروح يري لا تسأل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي قفك هالسؤال نو هذه الهبل هل يجور محالك سواسه لكن واحد ويديسا قرينكيس يا صاحب الأرض وأي فكل قرين بالمقارن يقتدي قرين كستاهي كيل الحريري وصاحب كيس أها شكي waxaan ku jirin inuu ku dayanayo marka غفلada waxyaabaha sababa waxa kamid ah qofku inuu asxaab xun inuu la saaxiib marka qof walba iska fiiri dadka waxa weeyaan saaxiibada ah aad iyo aad isaga fiiri qodobka shanaad oo غفلada keena waa tuulul amal qofka hididiiladiisa iyo rajada uu ka qaba adduunyada nolosheeda inuu aad iyo aad u dheeri tuulul amal qofka marka arintaas ku dhacdo tuulul amal oo amalkiisu aad u dheer yahay wuxuu noolaadaa adduunyada qofkaasi asagoo malaynaya annahu lan yufariqaha inuu sanba dhimanaynba haddii qofka amalkiisa iyo tamaciisu iyo rajadii uu noolaanayo adduunyada aad ay u dheertahay adduunyada wuxuu ku noolaadaa asoo u maleynaya inuu saka tagay adduunyada ayuu qaabilaa wuxuu iska ilaabaa aakhiradii ayuu iska tuuraahu ilaabaa qofka haddii amalkiisu dheeraado ilaahayna wuxuu oranayaa subxaanahu wa tacaala darhum ya'kuluu wayatamattacuu wayulhihim alamal fasawfa yaclamuun iska daa nabiga suubano qatag ha cunaano ha raaxaystaan ويلههم الأمل أمل كوذ هم مشغولية وحي الله أبورها كمشغولية لكن فسوف يعلمون دي بيك أغاد دونان با إلهي سبحانه وتعالى دي بيك أغاد دونان وتهديده واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين هذا ويسيدا وعطابي دونان إلهي وحو أرانا يا وحا دوادي يواهي حقا قيامه وادواد فإذا هي شاخصة إسلام مركابة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وقالوا ويمركا أرق يدود وكوة تاغن حين كو قوليان يا ويلنا قد كنا في غفلة هوجين أرنكا وحن كغسقنين غفلة بان كسقنا بل كنا ظالمين سداس عطابي دون marka tuulul amal asaguna wuxuu sababaa qaflada ayuu sababaa nabigana waxa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yiri hadith bukhari oo soo saaray min hadith abu hurayra nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yazalu qalbul kabir shaban fitnatayn kama zuulo
qalbiga qofka weyn oo da'da ah inuu dhalinyaro yahay fitnatay laba shay qalbiga qofka weyn iyo qofka dhalinyarada ah waa isku mid qofkii da'da ah iyo xataa 80 iyo 100 ka jiray qalbigiisu waa dhalinyaro labada shay iska fiir labada shay maxay yihiin nabi wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam fi hubbi dunya wa tul al amal adduunyo jacayl adayta qofka da'da adduunyada waa jecel yahay sida ka yar u jecel yahay si lamida ayuu asaguna u jecel yahay oo qofka da'da ah qalbigu dhalinyaro ka yahay marka adduunyo jacayl la joogo adduunyada waa jecel sida qaas u jecel yahay wa tul al amal saasoo kale amalka dheeraashadiisa kaas weyn wuxuu rabaa wax badan inuu noolaado rajaynaya damcaya oo hididilsanaya kana wala khayr kana wala waxa laga wariyay Ali radiyallahu anhu inuu yiri irtahalat ad-dunya mudbira wartahalat al-akhirah muqbila dunyo alaabaheeda way qaadatay xamaanteedu way raratay way daba jeedis aakhirana waa soo qaadish markaas wuxuu yiri wali kulli waahidin minhuma banun mid kasto kamida aakhiro iyo adduunyo wiiladu iska leeyahay ilmowli caruur bay leeyahay markaas wuxuu yiri Ali radiyallahu anhu fakunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'i ad-dunya waxaad ahaataan oo kamid noqotaan ilmaha aakhiro laakiin ha noqon ilma adduunyo noqonina markaas wuxuu yiri fa inna al-yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal maantadan waa maalin shaqo xisaabi ma jirto xisaabtu waa dambaysa birina xisaab ma jirto amal ma jiro xadiidka tirmidhi wariyay radiyallahu anhu warda Ali radiyallahu anhu ayaa sidaa yiri cudurka sababka lixaad wuxuu yahay النسيان عن الموت والدار الآخرة قفك إنه اسك إلابه جيريدة إيو آخرة والسبب كان يأسونا وحويان إنه قفك غفلتك السناضة الله غفلتك السناضة دينت غفلتك السناضة حتى مر قفك أو إلابه جيريدي مهما أوقفك جيريدة إلابه وحابدته سقطات كيسا بعد عيسى قلبات كيسا بطا إلهنا وحو سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وحو كوا لا يرجون لقاءنا رجاء الله معناه بمعنى الطمع بمعنى الخوف إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون لقاءنا كوا أن كبقين كعب سنين كلا كينا ورضوا بالحياة الدنيا كنا رالي النقضين نرشأ الدنيا كعب سمايان لكلا كينا كعب سمايان حيرالي كنا نقضين الدنيا أي رالي كنا واطمأنوا بها ويكحسلين يو الذين هم عن آياتنا غافلون كوا آياتها النجا كجسوان غفلت يموجنان كجسوان أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إلهي وحوليه إلا ماذا سكبي كواسي مكانه يجودوا النار بما كانوا يكسبون لا ظلم معي أو وحي شقيستهم والعياذ بالله إلهي من كم يجلينا إلهي آياتك سبحانه وتعالى إن غفلتك كسبنان إن الدنيا رالي كنا ظنه إلهي من كم يجلينا سبحانه وتعالى لحداث سبب أي أبوه وين سببها كينا غفلة وحنقول بين علاج غفلة داوم الليلة ها داوي الليلة كنينية الله قاطعت يعربضه سيديد أيام كسو قادنين سيديد قضب ككوات أو لغو داويو غفلة والعلم بالله إلهي وين سبحانه وتعالى قفكم إنه الله أقوان ويش معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دينه وشرعه قفكم إنه ربي قرطه نبي سأو قرطه
diintiisa iyo sharcigiisa inuu barto waxay sabab u noqonaysaa inuu waxa weeyaan qafladii ka baxo waxay daawo ka tahay aqoontaas oo baranayo Allah subhanahu wa ta'ala sifaadiisa iyo asmaadiisa iyo awoodiisa iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo diintiisa waxay daaweynaysaa waxa weeyaan qafladii oo ku jiray qul hal yastawi alladheena ya'lamun والذين لا يعلمون فاسا إله لي كوا وحقرانيا إيا كوا أن وحبا قراني ميي سمي لا يستوون مصنا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور روح عند ولا أي روح عند قبا ميي سميه مقدي افتين ميي سميه ما يمصنا أرن كلابات ولو داوين يغفلده وحوي ذكر الله تعالى على كل حال حالتك استقفك إنه إلهي حسن سبحانه وتعالى إلهي وحورنا يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا حس نبي صوبنا وربك نفت هذا كحس أديكو اسمه بهنية أديكو عبسرية أديكو أن قولك كأقالي ولا تكن من الغافلين ذاتك غافلين تأو ربي قودها المعامي حكمت المقوم بها النبي الوير صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فسأل الله إليه سبحانه وتعالى أنا يحسى أنا أذكر إذا حسي ذكرك وحى الوقارة إلهي وإلى سبحانه وتعالى إنه كحصه أيها الوقارة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون مركا قفكو مركزتا وإنه إلهي حصه سبحانه وتعالى سيء غفلتك أقبح نبينا وحي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت وفكا إلهي حصة كان إلهي حسين مثل كدوحوي روح دنتي روح نول روح إلهي حصة روح نول روح إلهي وإن سبحانه وتعالى أن حسين قف دنتي وكلوي صافك السدحات وحوي أو غفلة اللو داوين كم أرنك السدحات داوة السدحات شيء قال السدحات وحو داوة كيهي ولما وحى لهذا هي العلاج الناجح لعلاج غفلة القلوب وحويان مجالس الذكر قف إنه حاضر مجالس الذكر مجالس إلهي لغو حصاي سبحانه وتعالى نوتم ميلها لغو حصاي إلهي وإنه سبحانه وتعالى مجالس إنه قاقا يبقات ومجالس غفلة إيو سوق إيو ميلهاس إنه يريو قفك أو أبضناضو مجالس الذكر مجالس إلهي نوحه سبحانه وتعالى مساجد إنه حاضر النبي عليه الصلاة والسلام وحويلي وحاكسوغا إذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوها هذا صومرتان بيرها الجنة كمل الضاق بيرها الجنة هذا صومرتان فارتعوها صحابتي وايه وما رياض الجنة يا رسول الله مركز رسولك عليه الصلاة والسلام حلق الذكر وحلقويك ذكر قوي الله حسكي صلى الله عليه بإله دينتا لغو برناي تفسيرك لغو أفرناي حديث النبي لغو دراسيني دينتا لغو برناي بإله إلهي لغو حصاي سبحانه وتعالى حلقويك ذكر قوي حديث كان الترمذي وريه شيخ ناصر الدين الألباني وتحسيني داود أفراد وقراءة القرآن قفك إنه بديو قرآن أخرسك إلهي وحي لغو دوادو وحا فضل بدن وقال له جعليه كلام كيس مركا قفك وإنه بديه قرآنك أخرس كيس وإنه بديه وحال يوري خباب بن أرث رضي الله عنه وأرضاه إنه يري إلهي أدواه أنت الأود حال نؤغاتا إلهي وإنه سبحانه وتعالى ومدوات الشيء وكذلك جعل بديه كلام كيس إلهي كلام كيس وقرآنك مركا قرآنك أخرس كيس وإنه بدستت سيئة غفلة وبحريت ليلا والنهار هذينك يا معلمتين داود الشناد والدعاء والتضرع إلى الله قفوا إنه إلهي بريه سبحانه وتعالى إلهي يسبه به
إلهي إنه بريو مركزته قفك هدو دعاء بريو يسبه بهنت إلهي ويسبه بهنا سبحانه وتعالى وحاكتك تمرك غفلتي عذر كاس وحويا وقتها حاكسوا النبي عليه الصلاة والسلام قفك هدو إلهي بريو قف مسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة مجرى قف مسلم وإلهي بريو سبحانه وتعالى بريو ليس فيها إثم ولا قطيعة الرحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث دعاء السنة أي سنقصنين دنبي يقرب جسمه إلا إلهي وحوصي سبحانه وتعالى دعاء صوف كذا سدح شيء أيوك السيا متخبئة إلهي إنه أسود الدجيو بريديس ووحو ويجيست أوصي اللهم إني أعوذ بك من الغفلة والقسوة إله وحن كامل قليا غفلة أيام كامل قليا سدح متكمل ينقون إلهي إنه أسود الدجيو سبحانه وتعالى بريدة عدي وأدوية الوصي إن إلهي إنه كو كيدي آخرة إنه الله كو كيدي سبحانه وتعالى إن لقاقع عليه بلايو iyo musiibo kugu soo socotay in lagaaga leexiyo saddexaas mid kamid ah noqonaysa marka baryada waa inaan badino ilaahay aan ka barino subhanahu wa ta'ala ducooyinkaas nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam inaan ilaahay ku barino subhanahu wa ta'ala cudurrada alista ilaahay inaan ka barino ilaahay inuu naga magan geliyo subhanahu wa ta'ala daawada lixaad waxay tahay al muhaafadatu ala salawat al khams ma'a al jamaa qofku inuu ilaaliyo salaadaha shanta ah jamaacadana uu ku ilaaliyo jumcadana waliba uu aad iyo aad u ilaaliyo salaada jumcada Abi Hurayra waxa laga wariyay radiyallahu anhu inuu yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu yiri man xaafada ala haula as-salawat al-maktubat lam yuktab min al-ghafilin wuxuu nabigu yiri qofka ilaaliya salaadahaas waajibka qofka ilaaliya لم يكتب من الغافلين إلالية من حيث ينادى بهن ماشا لوغا نادين يو صلاة أكالية الليبانة أكالية اللي هي قفك كو إلالية صلاة لم يكتب من الغافلين ذاتك غافلين وإله الموك لغو مقخر ديتك ابن خزيمة صار شيخ ناصر الدين الألباني وصحيحي وعكسوا النبي عليه الصلاة والسلام إنه يري لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات إلهي كل دارتي رج ويكجوك سنايا كتجيا جمعوين كتجيا أي كتجيا رج وكجوك سنايا وكهريا أو لا يختمن الله على قلوبهم أما إلهي وين سبحانه قلوب تذحري إلهي وين قلوب تذحري ثم لا يكونن من الغافلين kadibna waxay ka mid noqonayaan dadka qaafiliinta marka jumcada oo laga tago oo la fududeysto salaadaha waxa weeyaan oo sidaas oo kale aan la ilaalin waxay keenaan cudurkan qaflada leeyahay marka salaadaha oo la ilaaliyo maca jamaa iyo waxa weeyaan salaada jumcada oo ayadana aad loo ilaaliyo waxa weeyaan waxay daawo u yihiin qafladii قولك تضواد waxa weeye al-hirsu ala qiyam al-layl qof inuu ku dadaalo qiyam al-layl inuu ku dadaalo qofka hadduu qiyam al-layl ku dadaalo waxa weeyaan cudurkaas qaflada qiyam al-layl ku daawo kaya u daaweeyo nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam man qama bi 10 ayat lam yuktab min al-ghafilin qofka istaago qiyam sameeyo habeenkii haba ku akhriyo qiyamkaas 10 ayat lam yuktab min al-ghafilin dadka ghafiliinta Allahumma daro liiska dadka ghafiliinta لغمضر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام ب100 آية قفك لكن استاغ بقل آياتنا أخرية كتب من القانتين ذاتك قانتين تا أياب الغدر ليسك ذاتك قانتين تا الغدر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود أولي شيخ ناصر الدين الألباني والصحيح وحصوا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إنه أيبي ونكويري يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحد من شئت فإنك مفارقه محمد عش ما شئت انت عرفت النولاو بعد ما انت قفك عرفت الجعلاو فإنك مفارقه وحاد واتا واعمل ما شئت وحارت الصمي
فإنك مجزئ به ولغا أمال مريدونا واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزه استغناؤه عن الناس وحالوا تاقفك مؤمن كشرفتي سوى قيام الليل كوي عزدي سي شرفتي سنوى استغناؤه عن الناس تذكوا ككافتون هذا حديث حاكم وريي شيخ ناصر الدين الألباني حسب وخدقه داود السديدات كنينيغا السديدات وقفك غفلة قبا وحويان لغو داويني وانا داود أضم بيسا والإكتار من ذكر الموت قفك إلو بديو حسوس تجيريد حسوس تجيريد قفك إلو بديو مهما قفك أو نولادو انتو ربعا نولادي وكي جيريد الدمية سلا صار على اللي كل نفس ذائقة الموت نفس ما أنت جيريد الدمية آيات سوى تعزية لجميع الأمة أمة دورن أي تعزية قف والبو لمنيه ولا كله الريان معه marka qofku haduu geerida xasuusnaado wuxuu ka badbaadaa cudurkan qaflada leeyahay ولذلك بان النبي عليه الصلاه والسلام ugu baraarujin nabigu yiri aktiru dhikra hadim alladdat waxaad badisaan xasuusta midka macmacaanyada jara yani الموت wa geerida ilaahi waxaan weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala cudurada halista ah oo qafladu ay kamid tahay ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala inaan qaflad kaga sugnaano diinteena inaan qaflad kaga sugnaano geerida iyo waxa weeyaan sakaraadkeedii qabriga iyo mugdigiisa salaadka iyo zalladiisa iyo waxa weeyaan xisaabta iyo ahwaasha qiyaam inaan qaflad kaga sugnaano ilaahi baan ka magan galaynaa subhanahu wa ta'ala hada akhiruhu wallahu subhanahu wa ta'ala alam